wasiir marka hore kusoo dhawow radio Walweyn. waa mahadsantahay ku dhawaad. muxuu yahay ujeedka safarkiina? ujeedada safarkeena waa wuxuu ka kooban yahay dhibaatadii ka dhacday shaqooyinkii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay degmada Walweyn, in sidii xal loogu heli lahaa aan arrintaas u joojin lahayn, halka ma dambeysana loo gaari lahaa. marka taas safarkeena iyo ujeedadeena ugu weyn waxay ahayd dhibaatadaas dhacday in aan bulshada inaan ku fiirsano xogaha waxay nala noqotay dhibaato, marka inaan soo gaarno bulshadii ciddii ka dambeysana xaqiiqdii ka dawlad ahaan aan tallaabadii ku habboon oo laga qaadi karaan ka qaadno. safarkeena ujeedadiisa ugu weyn intaas ay ahayd. waa gartay. waa maxay waxa ugu weyn isku khilaafsan yahay maamulka? xaqiiqdii maamul markuu isqabsado hadda baaritaan weli kuma sameynin, hadda kadib baan hoos u geli doonaa, laakiin hadda khilaafkoodii oo weliba gaaray in gacan ku hadal ay sameeyaan tana soo gaartay waa taas. laakiin insha allahu tacaala aniga maadaama wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirkiiba hadda anigaan socdo oo waxaan rajaynayaa in aanan mar dambe aan dhici doonin qaladkaas dhacayna aan bulshada ugu tacsideynayna xaqiiqdii dhibaatada ay gaaray. insha bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay dhibsada noocaas oo kale ah inay ka baaqsadaan, iyaguna garab u noqon. xaqiiqdii labadan qof keligood isma qabsan karaan, laakiin dad unbaa hadda labada dhinac la kala safan. laba qof oo dana gaar isku haysta mise wax dhaqaale isku haysta wax isku haystaan in haddana qabiil laga dhigo oo bulshadii weliba la isu turjumo iyagana la isku diro dhibaato weyn way. marka insha allah baaritaan baan ku samayn doonaa, tallaabada ku habboon oo ka qaadi doonaa insha allah. waa gartay. ma kala qeexan yihiin awoodaha guddoomiyaasha sida guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa? aad iyo aad dawladnimada waxay tahay waa wax lagu shaqeeyaa jira oo shaqooyinka kala saaraya. marka qof waliba wuxuu leeyahay nidaamtii oo afka qalaad lagu dhahaa oo u kala saara qofka la guddoomiyaha muxuu qabtaa, ku-xigeenadiis maxay qabanayaan. shaqadaas aad bay u kala saaran tahay, wax isku qasan maaha. waa gartay. khilaafkan mudbilooyin uu soo jiitamayay maxaa culays ka dhigay in la xaliyo? teeda kale laba shaqsi oo aad isugu soo laba shaqsi oo adigu aad soo magacawday awoodna u leedahay inaad xilka aad ka qaado, sidee ku dhacday in dhowr jeer ay isku dhex dagaalaan shacabka dhexdiisa? dhowr jeer horta saas oo u badan ma dhicin. dhibaatada markii hore intaan ma gaarsiisnayn, waxaan isku daynay in intaan ka badan mararna shaqada laga joojiyay, marar saas oo kale shaqo jooji inta lagu sameeyay laab bay dhaba looga wacay. halka in la gaaro waa mar walba ii sheeg adiga maalin baa la gaari lahaa, laakiin haddana dhibaatada dawladda haday dhacday inay ka daba tagtaa wax ugu muhiimsan. haddana dawladdu waxay diyaar u tahay in tallaabadii ugu habboonaa laga qaado, isla mar ahaantaasna aanan mar dambe aan soo noqon. xaqiiqdii aad baan ugu xunnahay. baniaadanku maamul hadduu yahay haduun ahaynba khilaafku waa baniaadanka u samaysan. inay iskhilaafaan maxay isku khilaafi kareen lama dhihi kara. baniaadanku wuxuu u samaysan yahay inuu wax isku qabsan karo, ama maamul ha noqdo ama qof shacab oo banaanka jooga ha noqdo. maxay u dhacday lama dhihi karo, way dhici kartaa oo wax suurtagal ah, laakiin wax habboon maxaa laga sameeyay. haddana waa tanaan hadda aan joogno Walweyn, waxaan rajaynaynaa bulshadan u xaqiijinaynaa in dhibaatadaas aan dawladda raalli ku ahayn, aadna ugu xun tahay in dhibaatada shacabka la gaarsiiyo. weliba dad maamulkii la rabay bulshada inay u shaqeeyaan u turaan oo in badan oo horumar laga sugay inay ka fikiraan bulshadan maxaa u wanaagsan inay dhibaato geystaan. aad baan ugu xunnahay, laakiin waxaan u ballan qaadaynaa inaan dhici doonin. hadda kadibna ay ka fiirsanto dawladdu xaqiiqdii dadka ay maamul dhibanayso iyo laguna qofka hadduu ogyahay in la xisaabtan adag uu meesha jiro ma dhici karto. marka insha allahu tacaala la xisaabtan adag baan samayn doonaa, waan ku dabageli doonaa dadkaan soo magacaabayna shaqooyinkooda. waa gartay. aad mahadsantahay. maxay tahay rajada aad ka qabtaan in la xaliyo khilaafkan? aad baan ugu kalsoonaa insha allah. ma aha wax naga badan, waa la xalin doonaa, waa la xalinaa. bulshada waxaan u baaqaynaa inay isdejiyaan, inay ka shaqeeyaan horumarkooda, nabadgelyada laga shaqeeyo, colaad iyo waxyaabaha maalmahan magaalada ka dhacay laga soo kabsado, dadka ganacsigooda iyo goobahooda cibaadada iyo dugsiyada dib ugu noqdaan. waxaan u ballan qaadaynaa in khilaafkan la xalin doono, aan ku filanahay xaqiiqdii inaan xalin insha allah. taasaan u ballan qaadaynaa. waa gartay. waxaa jira dad ku dhintay ama ku dhaawacmay dagaalkan, sidoo kale waxaa jirta hanti ku burburtay. yaa qaadaya mas-uuliyaddaasi? adiguse qeyb ma ku leedahay? xaqiiqdii anigu ii sheeg hay-adihii amnigii garsoorkii dadkii baari lahaa anima ihi ka maamul ahaan intii ugu aadan waa tillaabadaas waan ka qaadi doonaa, laakiin hay-adihii u qaabilsanaa arrimahaas inay baaraan oo ii sheeg ay ku sameeyaan yaa gaarsiiyey, maxaa loo gaarsiistay, cadaaladii amniga shaqadooda ay tahay iyagaana qabsan doona insha allah. waa gartay. dadka arrimahan u dhundaleela waxay sheegaan inuu jiro culays idinka heesta xagga xildhibaanada federaalka ah ee kasoo jeeda degmadan Walweyn,
saa darteedna aad wax tallaabo u qaadi weyseen maxaa ka jira arrinkaas ama aad kaga jawaabaysaa taas waxaan u dhihi lahayn dawladda hadda waxa ka hor istaaga inay tallaabo qaado ma laha cid ka hor istaagi kartana ma laha xildhibaan nooc doon ha ahaada xildhibaanka dawladdu ka mid yahay waxbuu ka codsan karaa dawladda rabitaan uu yeelan karaa si buu wax u rabi karaa laakiin wax ku qasbaya ma laha in dawladdu uu rabitaankiisa uu ka hor istaagi karo marka cid hadda culays nagu haysa gaar oo ay sheegay shaqadii loo egmaday dawladda ay shacabka ay ka rabeen inuu xildhibaan hor istaagi karo ma jirto taas waa been waa gartay inta badan dagaaladii soo maray degmada Walaweyn waxay salku ku hayeen isbaaro wax hal ah ma loo waayay mise idinka ayaaba qayb ka ah isbaarada aad baan ugu xunnahay isbaarada waxyaabaha hadda Walaweyn ku cusub ee xaqiiqdii noqotay oo waliba dhibaato badan wadadan isu socodkeedana ay sheeg dhibaato badan u geystay oo reer Walaweyn kaliya aan ku koobnayn laakiin wadada Walaweyn soo martay waa mid isku xirtay Soomaali iyo wadamo kale ay ku xirtay ilaa Ethiopia Kenya iyo gudubta dadka wadadan ku safray xaqiiqdii dhibaato badan ay la kulmeen dawladda markii aad dhahdo dawladda idinkaaba ka dawladda isbaaro ma dhigato dawladdu waxay ka shaqeysaa in bulshada sidii loogu adeegi lahaa canshuurayna ka qaadaa shacabka laakiin hadda xitaa dawladda canshuur kama qaato waxa uu soo horad wax maamulka gudihiisa laga qaado way jiri karaan laakiin dawladda dhexe oo koonfur galbeed hadda canshuur ay ka qaado Walaweyn oo hadda qasnada dawladda ku haroodo ma laha marka canshuurtaasna kulay waa tan loogu dalagalay qofka muwaadinka in lagu difaaco lagu horumariyo waxyaabo baahidiisa loo qabto laakiin hadda wali mid la qaado ma laakiin hadda waa sababaha keenay ciidamada joogay maamulkii baa ii sheegay dad baa sameynaya oo mas'uuliyadaas insha Allah taala lagu xisaabtami doona laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama ciidankii iyo waliba dad mararka qaarna maleeshiyad u sameeysan ay dhibaatooyinka noocaas ay sameynayaan dawladdu waxay ku qasbanaan doontaa cid allaaleedii falalka noocaas ku dhaqaaqaysa inay tilaabo ka qaadi doonto insha Allah waa gartay haddii aan u soo noqono wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka muuqata xabacsanaan xagga maamulada degmooyinka ah mana u shaqeeyaan hab dawladeed magacaabis kadib ma jirto wax la yiraahdo isxsaabtan ama dabagal qaabkay u shaqeeyaan shaqada wasaaradda ma magacaabis oo kaliya ku kooban tahay waa mahadsantahay dadku isweydiin karaan taa waa la dhihi karaa laakiin maxaa keenay sababo iyo duruufaha jira in la fiiriyo u baahan tahay wadanku uu kala xiran yahay waxaa adag inaad ku soo gaartid Walaweyn nooca ku gaari lahayd wadada lama soo mari karo xataa airportka ku yaala waa airport oo ciidanku ay isticmaalaan laakiin aan lahayn diyaarado commercial ganacsi ah diyaaradani hadda aan ku imid wax laga yaabaa muddan ku mashquulsan in diyaaradaas aan helay inaan UN ka weydiisana wax laga yaabaa kirada ku baxaysay in $100,000 ku baxaysay marka mid reer Walaweyn ay awoodaan ma aha mid dawladda koonfur galbeed awoodana ma laha marka inaad codsi samaysid aad ka codsatid dhibaatada keenaysa waxay tahay kaliya isu socodkii aad u adag laakiin haddii ay maanta nimanka maamulka hataa ogaan lahaayeen in haddii cilada ay dhacdo baydhabo inta laga soo dhaqaaqa saacado gudeed la imaan kara iyagu ma sameeyaan kumana dhaceen laakiin wasaaraddu shaqadeeda ugu weyn bay gelisaa degmooyinka isla bishan gudaheed waxa laga ilaa 3-4 degmo inaan tagay oo ii sheegay ana arrimaha socdo marka wasaaraduna dhinacan waxay ka wadaa dhismihii maamulada golayaasha deegaanka waxa ma dhihi karnaa hadda dawlad goboleedyada wasaaradda hadda maanta ugu shaqada badan oo wada dhismihii golayaasha deegaanka tababaradooda iyo sidii nidaamkii maamulka dib loogu dhisi lahaa waa wasaaradda ugu shaqada badan oo xaqiiqdan ma taqaana ii sheeg shaqada la qabanayo laakiin waxa keenay duruufahaas waxay tahay waa dadkii iyaga naftooda maadaama wadanka muddo burbur uu ku soo jiray oo khibradii iyo aqoontii ku filneed aan lahayn in la tababarana mararka qaar aan dhamaantood dhowr jeer baa gudoomiyaasha aan isugu geynay baydhabo iyagoo nidaamka maamulka la barayo tababar la soo siinay marka wasaaraddu way daba socotaa haday soo magacawday iyo iskama soo magacaabayso waxay soo raacaynaysaa habka uu shaqeyn lahaa sidoo bulshada ugu shaqeyn lahaa haday qalad galaan wadan daba taaganta waa muddo sanad gudaheed aan Walaweyn aan ku sheegay iyadoo isu socodkeedii diyaaradaha ay aad uga deegihiin in la helo haddana sanad gudihiisa markii labaad aan soo gaar marka taa micnaheedu waxay la tahay labada jeer baan meeshan wax kala dalxiis ma imaan waxaan u imaaday arrin waxaan daba socday maamulkaas xitaankiis marka mar walba diyaar baan waa gartay arrimaha golaha deegaanka xagga wasaaradda degmada Walaweyn maxaa ka qorshaysan Walaweyn waxay ka mid tahay degmooyinka ugu horeeyay qorshaha noogu jira insha Allah isla sanadkan in la dhiso golayaasha deegaanka sida lagu dhisi lahaa oo bulshadu ay iska soo doortaan ay soo xushaan qofkii matali lahaa aan dawladda intaan ka badan xataa mararka aan lagu eedeyn laakiin bulshada aan u dhiibno qofka iska soo dooranayaan qofkii matali lahaa qofkii maamuli lahaa degmada ugu horeysay noqon doonta insha Allah waa gartay ugu dambeyntii bahda radio Walaweyn aad kaga mahadcelinaysaa wareyskan aad naga ogolaatay shacabka ku dhageysanaya degmada Walaweyn ku nool
maxaa leedahay ugu dambeyn ood ugu baaqaysa misana u sheegaysaa? aad bay u mahadsan markuu ugu horreysay horta dulqaadka ay sameeyeen iyo dowladnimada iyo wanaagooda waan ku ammaanaynaa. waxaan kaloon rabaa inaan ugu tacsiidiyey dhibaatadii ay ka dhacday maalmihii soo gaartay dhan xantideed iyo dhan nafeedba meel ay ka gaartay. waxaan rabaa inaan ugu tacsiidiyey inaka dowlad ahaan aad baan ugu xunnahay. waxaan u ballan qaadaynaa waa lala xisaabtami doonaa dadka waxaas ka dambeeyey. isla sidoo kale waxaan leenahay sababtoo qofka mas'uuliyadda wuxuu isaga sameeyay isaga qaadaya cid u qaadaysa malaha dowladuna ma qaadi karto qof kale u qaadayna malaha qabiilna ma qaadi karo ciddii fal samaysa dhibaato bulshada aan u geysta iyadaa lagula xisaabtamaya. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhallinyaradii iyo ganacsatada iyo culimaadudiinka u istaagay joojinta dhibaatadii dhacday. waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waan idinku ammaanaynaa. waxaan rajaynaynaa inta dhiman inay dhammaystiri doonaan sidii dadkii la iskugu soo celin lahaa oy dib ugu fikri lahayn horumarkooda iyo wanaagooda. reer Walaweyn waxaan leenahay dowladda koonfur galbeed iyadoo duruufahaas ay jiraan waa markii labaad saddexaad ay soo gaartay degmadan. waxaa keenay waxay tahay sidii bulshadan duruufaha haysta wax looga qaban lahaa. xaqiiqdii anigana ka wasiir ahaan hadda waa markaygii labaad aan imaaday insha allahu tacaala. mar dhowna ka wasaarad ahaan waxaan u ballan qaadaynaa in maamulkii golihii deegaanka la dhisi doono kaas oo matalaad buuxda ay ku yeelan doonaan dadka shacabku. sababtoo maamulka wuxuu noqon doonaa mid ka imaada shacabka iyagoo iska soo dhexushaan gudoomiyadu ay doortaan iyagu ay la xisaabtaman karaan oonan dowladda xitaa laga sugi karin. dowladdu markaas waxay ku yeelan doontaa inay ku kormeerto shaqadooda inay gudanayaan waajibaadkooda in kale laakiin la xisaabtankeeda waxa yeelan doona dadka shacabka. marka taasaan u ballan qaadaynaa. waxaan leenahay isku xirnaantii dowladnimada ha laga shaqeeyo. nidaamka qabiilka oo maalmahan ka socday qalalaasaa markuu dhacay waxaa samaysmay in dadku qabiil iyo waxyaabahaas ay ka fikiraan. waxaan leenahay Soomaali 30 sano qabiil dib u dhigay uma baahna maanta qabiil. waxaan leenahay ka maarma ka jooga qabiil wuxuu taray madaxa bulshada. waxaan leenahay ka shaqeeyo waxbarashadiina caafimaadkiina ka shaqeeyo jidadkiina u shaqeeyo. maanta 30 sano Soomaali qabiil isku haysatay qabiil hal iskuul dhistay ama se hal isbitaal dhistay lama hayo. marka ka wuxuu horumar u gaarsiin kara malaha bulshada dib u dhigay. waxaan ugu baaqaynaa mar walba aan ku adkaynaynaa wali inay dowladnimada u xeeliyaan wax waa lagu gaari karo dowladnimada. reer Walaweyn waxaan leenahay dowladnimada hal adkay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. idinkana aad u mahadsantihiin Radio Walaweyn.